بسم الله الرحمن الرحيم. حفلad aad u weyn oo lagu caleemay saareen madax dhaqameed cusub oo ku soo biiray madax dhaqameedyada Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Qulsheed oo dhinaca waqooyi galbeed 30 kiiloomitir ka xigta xarunta gobolka Awdal ee Boorama. Gole ay isugu yimaadeen boqolaal qof oo isugu jira salaadiin, garaado, boqorro, wasiiro, xubno baarlamaan, xildhibaano deegaan, culimaadudiin, fanaaniin iyo marti sharaf tiro badan ayaa laga waageeray darifka bari ee magaalada Qulsheed. Ujeedada ugu weyn ee madasha waxay ahayd muddada looga soo shaqeynayay in lagu caleemo saaro Suldaan Abibakar Cilmi Wabar oo loo caleemo saarayo suldaanka guud ee beelweynta Jibriil Yoonis oo kamid ah beelaha deegaanka gobolka Awdal iyo wadamada dariska la. Golahani oo ay ka muuqdeen dhalinyaro aad u labisan oo ku gaaran xagga ragga hadee noqoto labadii go ee cadcada golxadkii iyo waliba sabraarka caanaha iyo gabdhaha oo hidaha iyo dhaqanka marada saddex qayda ku labisna timuhuna ay u dabnaayeen ayaa markii uu soo gaadhay Suldaan Abibakar Cilmi Wabar madasha waxaa lagu soo galbiyay oo lagu soo dhaweeyay heeso wadani ah iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyadoo doc kamid ah golahaasina ay si gaar ah u fadhiyeen 41 xubnood oo ah golaha gandaha la yiraahdo oo iyagu soo xulay caleemasaarka suldaankan cusub. Mayorka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile ayaa si nabadeed u soo dhaweeyay dhamaanba marti sharafta isugu jirta shacbi weynaha Soomaaliland oo dhan oo ka kala timi gudaha iyo dibadda dalkaba. Jaamac Faarax Xareed waa afhayeenka beelaha suldaanka iyo gudidii soo xushayba waxaanu ka warramay muddadii ay soo wadeen shaqadan dhaqanka iyo hawlihii badnaa ee ay soo qabteen. Waxaanu ka mahad celiyay dhamaanba cidii gacan ka geysatay muddadii hawshaasi ay soo socotay. Sheekh Albaladka deegaanka Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ali Shawhar ayaa hadallo diineed, waano iyo ducaba waxa uu jeediyay suldaanka cusub ee la caleemo saaray waxaanu huwiyay jubad uu xaramka ka keenay oo hadiyada. Ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inaad sidii oo kala noqoto ayaan kaaga baryaynaa. beelaha Jibriil Yoonis inaad yaa hogaamisan kaaga baryaynaa. Samaroon oo dhan inaad hogaamiyo noqotaan kaaga baryaynaa. Soomaaliland oo dhan inaad hogaamiso ayaan kaaga baryaynaa. waxaana taa ku mudan kartaa ku daran sida xadiiska nabigu sheegay salawaatullaahi wa salaamu calayhi ninka marka la boqro ee la caleemo saaro laba qolo ayaa tirikilada ka soo gasha bidaanatu khayr wa bidaanatu suu qolo wanaagsan oo sharaf leh oo la talisa oo waanisa oo wixii xumaana ka joojisa oo waxaa ka joogsa tira iyo kuwa ku dhiirigeliya xumaanta ninka madaxda labadaas soo garab gala. Suldaan Cabdi Daahir Gaboobe ayaa caleemasaarka suldaankaasi cusub isagu si rasmi ah ugu dhawaaqay oo caleema saaray waxaanu suldaanka u cumaamaday xilkaasi weyn iyada oo loogu duceeyay lana caleema saaray جوجي والله صارن وحيدها هذا إمامك ولا بحدنا جوجي والله صارن جوجي والله صارن ما هذا إمامك ولا بحدنا جوجي والله يا مسافر يا ذكرى ويسوي يسوي حد baade ayaa saldanada ku wareejiyay suldaanka cusub. Suldaanka la caleemo saaray Suldaan Abibakar Cilmi Wabar ayaa wuxuu ka mahad celiyay munaasabadan hawsha badan qaadatay sida weyn loo soo agaasibay waxaanu u duceeyay guud ahaanba shacbiga Soomaaliland iyo darisadeeda in Ilaahay idin barwaaqeeyo dhamaanteen magaalada Qulsheed Ilaahay barwaaqeeyo number 1 waa magaalo barakaysan magaalo khayr badan la weeyi magaalo midnimo badan leh oo arrimaheedu guuleystaan weeyi waxaan u ducaynayaa maxaan ku raahdaa in Soomaaliland dhamaanteed oo dhan inay barwaaqowdo in umuuraheeda Ilaahay islaax ka dhigo nabadda iyo bashbashka in Ilaahay inoogu sii wado waxaan maxaan ku raahdaa roob ay nabad inuu abaartii soo dabada dheeraatay sanadkii hore Ilaahay naga qaado oo nimcooyinka Ilaahay inoo liso ayaan in ku ducaynayaa dadka shacbigeenan ka cudurada Ilaahay caafiyo Ilaahay caafiyo Ilaahay caafiyo Ilaahay caafiyo Ilaahay caafiyo muraadadiina nin walba wuxuu jecel yahay Allah idin siiyo dadkeena Soomaaliyeed ee walaalaheena ee aynu jaarka nahay ee dhibaatooyinku ka taagan yihiin waxaan ku ducaynayaa in Ilaahay islaax iyo nabad wanaagsan ka sameeyo.
caleemasaarka suldaankaasi waxaa iyagu goobjoog ka ahaa salaadiin boqorro garaado iyo madax dhaqameedyo ka kala socday guud ahaanba gobollada somalilan bari iyo galbeedba iyo siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen cabdiraxmaan aw cali faarax oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilan cilmi rooble fure brofesor saleebaan axmed guuleed maxamuud sheekh cabdilaahi cige iyo weliba xubno ka tirsanaa golaha xukuumadda somalilan oo ay ka mid ahaayeen wasiirka dibadejinta cabdirasaaq cali cismaan wasiirka duulista iyo hawada maxamuud xaashi cabdi iyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada cali xaamud jibriil waxaa xusid mudnaa qoraalka farta waaweyn ee lagu xardhay buurta quljeeda caanka ah ee caleemasaarka suldaanka iyo robab iyo hoosiye qabow oo ilaa xalay jawigu uu ahaa mid aad iyo aad u qabow oo aan wax dhibaato ah la dareemin abiib iimaan xasan muuqbaayaha qaranka somalilan qulujeed